asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kusoo dhawaada clip tbs aad hore ugu barateen cashir ku saabsan kombyuutarka. cashirkan waa cashirkii afraad ee kombyuutarka khaasata windowska. waxaan ku baran doonaa insha allah, waxaan arki doonaa intaan bracticada cashirka aan gelin waxyaabaha aan ku arki doono bracticada intaadan qaadanin. haddaad ku cusubtay janaalkeena fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay u faa'iidaystaan muuqaalada mar walba aan soo gudbino. waxaynoo tahay dhiirigelin asxaabtaada ayaa la wadaagtad aad u sheerigaraysid. gaarsii intaad awoodid ugu yaraan 1 ama 2 qofood si janaalku u noqdo janaal qof walba ka faa'iidaysan doono insha allah. markuu ugu horeyso waxaa hore u jirnay cashiradii hore, waxaan rajeynaa cashirkii ka horey waa cashirkii koowaad ee bracticada, laakiin cashir kale ka horey waa jiran, laakiin cashirkaas wuxuu noqday qaybtii bracticada. waxaan rajeynaa inaad soo samayseen bractica qurux badan oo celcelin badan aan samayseen insha allah. qaybtan waa bractic kaleeta insha allah. waxyaabaha aan ku qaadan doono ayaan isla arki doonaa insha allah. okay, qaybta outlinekeena ama ciwaanadeena aan ku qaadan doono waxaa ka mid ah how to run programming, sida loo soo kiciyo qaabka searchinka iyo start buttonka adigoo isticmaalaya keyboard. sidee loo weyneeyaa desktopka iconska saaran, sidee arranging application desktop iconska desktopka hadday isku qasan yihiin sidee isku hagaajin kartaa, how to hide sida u qari kartaa all application desktop wax kuu saaran dhan inaad qarisid wixii oo computer ku imaado iyo wixii kaleeta adiga aad samaysid. how to change sida loo bedelo appearance muuqaalka of standard iconska standardska wuxuu leeyihiin formaat iyo markii aad samaynaysa iyo kuway ku imaanayaan qaabka aad bedeleed iconskaasi. waxaan kaloo arki doonaa insha allah how to restore the appearance standard icons, qaabka uu yahay appearancega ama muuqaalka uu yahay iconskaada sida usoo bixi lahay waxyaabahaas ama si dib ugu celi lahayd ayaan arki doonaa insha allah. maadaama kan aad ku bedeshtan waxaan rabaa sida hore inaad ku celisid qaabka loo bedeli doono ayaan arki doonaa insha allah. waxaan arki doonaa how to log, sida log loogu xiro iyo sida loogu furo taskibar waxaa la usha dheerta waan arki doonaa insha allah. how to move sida loo dhaqaajiyo taskibar by using adigoo isticmaalayo mouse if not locket hadduusan xirneynin. how to move sida oo move garayn kartid taskibar adigoo isticmaalaya keyboard hadduusan xirneynin. how to hide sida loo qariyo restore standard iconska desktopka saaran sida u qarin lahayd sida usoo bandhigi lahayd ayaan arki doonaa insha allah. waxaad ujeedaa qaybtan qaybaha ugu muhiimsan aan arki doona ayuu yahay insha allah. waxaan isla aadi doonaa bracticadeena. okay, hadda waxaan haysanaa computerkeena. markaa saan usoo kicisid how to run waxaa la dhahaa window plus r allah. qaybtan waxaa qoreysaa winword ama window r haddaa dhahdid wordpad haddaa qor. okay, caadi kuu soo kaca marka qaabkaas qaabka loo soo kici lahay waa wordpadka ama iconska desktop. marka qaarkood waxyaabo qaarkood aad u baahan tahay inaad samaysid. how to enlarge stand on desktopka iconska saaran sidee ayaad u weynin kartaa. right click haddaad dhahdid view haddaa dhahdid large icons aada u weynaadeen. right click haddaa dhahna view aad dhahdid medium caadi noqdeen. right click view small waa kasii yaraanaya, laakiin sida caadiga badanaa waxaa la qaataa medium dhexdhexaadka badanaa la qaataa. how to arranging in desktop iconska haddii mar qaarkood session yaala kan inta yaala kan meeshaan inta iska yaala waxba isku qasan qaab darada shaashada kuu tahay qaabka aad hagaajin lahayd oo arranging ku samayn lahayd. right click sort by name automatically sidaas isku bedelaa oo desktopka wixii kuu sarnaayay oo iconska ayaad saas ku samaysay inaad hagaajisid. sidee ayaad u qari kartaa desktopka waxa kuu saaran dhamaan sideen usoo celi kartaa. right click view show desktop icon automatically wuu qarsamay. right click view show desktop icons wuu soo bandhigmaa sababtoo computerka optionka wuxuu leeyahay waxaad ku qorisay inaad soo celisid inaad maxaa la isi dibna u dhigtid. waxyaabaha ugu miisan oo computerka markaad isticmaalaysid inaad si fiican aad iska fiirisid laga baahan yahay sababtoo haddaadan waxyaabahaas aadan bedelin oo mar qaarkood waxaan la isi aas dhahdid waxaan waa maxaa la qaabdar waaye
waxyaabo badan uu naqanaa. How to change appearance standard icons. Tusaale ahaan iconskan default meesha ku imaanayaan icon wuxuu leeyahay color oo hadda sidaan camal basiga ama right click folder cover maxaa la isfeelka nimka properties daa dhahdid qaybtan waa qaybtii aad ka maamuleed customize dooranaysaa. Change aladahay choose picture ka dooro. Tusaale picture-kan camal ku doorno apply andaha qaybtan waxa way qaybtii soo maxalisi qaybta hor magaca lagu arki lahaa. qaybtan icons-ka tusaale forecast sida u bedel kartaa. Change leedahay hal mid oo sameyn kartaa browser-ka inaad dooratid desktop-kaada haddii wax kugu yaala icons inaa format qaabkan u soo save gareysid waaye si icons-kan kugu bedelmaan ama wax kale taa sameyn kartaa si icon-kan uu noqdo icon gooni. Okay leedahay apply kadibna okay. hadda tusaalahan clip 224 waxaan ka dhignay folder oo flash camal ah. sidee hore ugu celi kartaa? right click aa leedahay, properties aa leedahay, customize aa leedahay, restore aa leedahay, kii hore ku soo celi. change waxaa leedahay change restore aa leedahay kadibna apply kadibna okay. midkii hore waxaan sidaas dib ugu soo celisid oo sababtoo mar walba waxaa laga baahan yahay in aad iska hubisid waxa kaga soo bixi doono qoraalkaada iyo design-kaada. sababtoo haddaadan wax walba isdhaadid waa maxaa la isiiyey qabdiro ku soo baxaa. okay sidee ayaad u dhaqaaji kartaa taskbar waxaa la ushaan dheer ala taskbar sidee u dhaqaaji kartaa? hadda ma dhaqaaqno waxaan rabnaa inaan dhaqaajino. right click aa leedahay log taskbarka saaran dhaqaaji. waxaan rabaa taskbarkan inta aan geyno. sidee u gey kartaa? left mouse-ka ayaad xoog u riixaysaa kadib dhinacan kaleeta ayaa u jiidaysaa kabixi. okay hadda space waxaa helay aan gees u dhaqaaji kor aan geey dhinaca u wado hoosta aan geeyo. okay qaabkaas waxa waa qaabkii aad ku dhaqaaji lahayd adoo isticmaalaya mouse. waxaa rabaa mar qaarkood waa xiran yahay tusaale ahaan inaad dhaqaaji sartaa taskbarka aa loo qaaday alt space horta waa inuu xiran yahay naga hubi alt space m move tool mouse-kaada isticmaal. okay qaybta korsaas u geynaysaa mouse calaam falaaraha arrows-ka isticmaal hoos ay geynaysaa. haddana sida hore click ku sii right click log taskbar sidaasaa loo isticmaalaa. waxaa rabnaa sidee standard icons-ka computerka uu leeyahay sidee u qori kartaa sideen usoo bandhigi kartaa. kuwaana laadis standard icons computerka magaciisa pc network. right click aa leedahay personalize aa leedahay teamskanaan doonina hoos wad desktop icons dooro kuwaana la qari apply okay. waxaa jirta waxa dhan oo default computer ku jiri waa qari. sidee usoo saari kartaa? right click leh personalize dooro teams dooro desktop icon aad dooratid tigdii aad qaaday la keliya soo saar then apply kadibna okay. intaas waay. waxaan rajeynaa insha allah inaad fahanteen oo ku celcelin badan aad sameyn doontaan. haddii aad ku cusub tahay janaalkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay ugu faa'iidaystaan. fadlan sameey cashiradii ka hore adoon soo daawanin cashiradan ma fahmi doonto sababtoo waxaa waaye waxay basic u yihiin computer application. markaasuu fahanta computerka hordhiciisa qaybtii labaad ku xigtid qayb saddexaad saasay u soconayaan. haddii qaybta ugu dambeysa aad ka bilaawdo qaybta hore ma fahmi kartid sababtoo waxaa la rabaa inaad fahantid warbixin guud aad ka qaadatid. waa inuu mar kale muuqaalo kale sidan oo kale. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.